السلام عليكم دمان وإذن سلامة كسود هذا كسود يوتيوب كيغا إن كان فيديو هوري يوتيوب كمان تحاول برندونا 10 ديل English phrases of دوكا عابين دونو speaking كا confidence كاجي إن أتكلاشو English تبيعين إن هدي أين شيء كان فيديو هوري يوتيوب كمان كوري وحنا كسود بنجركم فراسيدان أيوكو كاون تيك توك marka hadii oo muuqaalkan uu soo gaaray muuqaalka subscribe garay si aad u hesho maalin walba waana huwa 10 ku anfici doona ama halkan wax soo gudbin doona 10 fudud oo hadii aad tahay arday ku horeersan yani speaking oo kale like if you understand English but when you try to speak English if you feel fear or unsure like videoga hadii yani hadalka bisoo kugu adagay and asoo soconna marka waxaan baran doonaa marka 10 dail English phrases oo fudud phrase oo kaliya ma baran doono sidoo kale waxaan ku bari doonaa phrase-ka iyo Somali translation sa screen-ka ka aragto when to use waxa way goorta phrase-kaas aan ku bari aad isticmaal doonto iyo Somali translation kale iyo phrase-ka jumlad ku jiro soo marka phrase-kan hadda marka barato 10 kan phrase markaad barato isku day mid waliba ina jumlad aan mid adi aan leedahay ina geliso yes iyo aan sentence mid adi aan leedahay so muhiim ina hadda phrase-kan barato waxa ku mataas laakiin isku day ina jumlad gelin karto muhiimadu waa intaas hadda phrase-ka kor u jeedo waa soo baranaytan jumladan gelin marka aad isku day ina jumlad geliso okay phrase-kan ugu horeey 10 xabaan baran doona insha Allah laakiin maalin walba waxa soo gudbin doona meeshan 10 iyo ka badan ilaa ay adi soo si aad yani muuqaaladaas u weyn ama oo hesho muuqaalkan yani aan channel-ka subscribe oo maxaa dhijirno si aad u hesho maalin walba 10 cusub warasku hore waa okay so u baahnid ina translation kala ku sii saaro mar hore ayaa ku sii fuudeeyay qaybtoos ayuu ku yeelay okay means ma fiican tahay so marka when will you use phrase-kan hadda barata when to use like goorta isticmaalayso very simple aad u fuudin marka buugaadi qaranka soo qaado ay asaasano when to use maxaa goorta la isticmaal goorka aad isticmaalayso phrase-kan goorta isticmaalay haddana hal yaro English kor ugu jeeda oo English and then Somali translation so goorta isticmaalayso when someone looks sad quiet or not normal like marka aragto qof u muuqdo inuu murugaysan yahay sad quiet oo aamusan or not normal ama aan caadi ahayn qofkaas oo kale wax leeyahay are you okay what happened to you waxsaas amaladi maxaa kuugu dhacay are you okay weydo qofka okay example waxayna hadda rabtan hoos ka qalsab Soomaaliya kiiga mubahanidba an example jumladi example galnayna marka you look worried today maanta waxa u muuqataa inaad yani walwalsanta oo kale hoos ay ku qoran tahay ma u baahnid bakay are you okay mafahanta okay next phrase kale waa I believe in myself yes waxaan aaminsanahay nafteyda kan waa phrase oo very important also waxaan isticmaalnaa maalin walba la isticmaalaa soo marka muhiim ah phrase-ka inaad barato oo kaliya base usoo day ina yani jumlad aageliso sida hadda aniga jumlada u geeyo kale example ka adina try to make your own sentence yes ina jumlad geliso ayaa aad iyo aad muhiim ah codkeygana waxa u yargaabi uu qaata Somali waxaan aaminsanahay okay phrase-kan goorma isticmaal doontaa when you want to motivate yourself and feel confident like markaad ina naftaada dhiirigeliso aan dareento kalsooni say I believe in myself even if everything is hard yes so marka hadda waxaan baranayaa marka example I believe in myself so I will never give up mid kala meesha ku jiro wuxuu leeyahay waxaan aaminsanahay nafteyda so I will never give up ma quusan doono weligii adi marka wax kala dhahay I believe in myself xitaa haduu macalinkina obiya imtixaanka ugu baas dar adi waxyaalahaas gali muhiimad waxaa waaye inaan jumlad adiga gashto okay phrase-kan saddexaad waxa waaye I can do this waa sameyn karaa midaan ama waxaan waa sameyn karaa so kan goorma isticmaalna marka like we use when you start something waxaan isticmaalnaa markaad bilaabayso wax adag or new ama cusub yes when you start something new when you start something difficult or new difficult so sorry marka yani wax cusub bilaabayso example the lesson is difficult but I can do this like waa phrase oo motivation marka yani nafta dhiirigelinaysa la isticmaala phrase-yada qaarkood fariisadan wuxuu kala baxaan yani wuxuu ku xidhin siro hada kan oo kale waa mid dhiirigelin kugu lagu xiriiraa jiro waxa jiro kugu daily everyday la isticmaalo
kuwa حاجة real life كله استعمال كله وسوق من دون لكن حتى كان أوكل مركا يعني نفتح دير جلنا استعمال مجد this lesson is difficult but I can do this عشان كان وأدقى لكن واسمين كلام أوكي فرس كنا أفراد فرس كفراد وحاول I will try again قرنا استعمال لكن مركا يعني سوق ضيد دراسة مالي when to use قرنا استعمالها yes استعمال ساكن when you make a mistake but want to continue markaad qalad samayso laakiin aad rabto inaad sii wado want to continue okay soosna ku qoraya Soomaaliga kaliya waxa u baahan tahay maxaa dhigi jiray cod am pronunciation kan waxa isticmaali kartaa applicationada fudud ama dictionary ama Google Translate ad wax walba so barafaysan aday u fuudi maalin walba soo gudbin doona hadii aad tahay arday oo rabo inuu luqad barto xaqiiqada ku way ka caawin karaan sababtoo ah waa kuwan ku maalin walba isticmaalo hadaa barato waxa awood u leeyahay maalin walba inaad markaad ku hadasho soo marka isku day inaad buugi qalin qaadato aad qorato dabaaqana meelahaas aad u raasato hadaa muuqaalkan aad daawado waxaan muxuu marka I failed today maanta waan guul dareystay but I will try again tomorrow laakiin biri isku day doona okay first channel waxa way I'm improving every day kan gorma isticmaala marka I'm improving every day really this is very important in real life rescan sababtoo ah markii practice aad sameeyso ama wax markaa ka hadlayso oo kale markaa naftaada improve yani waa ina adi see improve means like getting better like ina sidii ka sii fiicnaato sida ahayd ina ka fiicnaato so hadda fiiriya iyo inaad waan ka sii fiicnaanay ama ina horumarto waan isna meesha wuxuu leeyahay marka maalin kasta waan sii fiicnaanay I'm improving every day when to use goorta aad isticmaalayso yes when you see progress in your life or when you see progress in your life when you see progress in your life or learning like markaad aragto horumar oo noloshaada ama yani waxbarasho marka yani waxay kugu soo qoraa kale marka aragto maanta ina yani Englishka speakingka isbedelay wax markaas aad yeah I'm improving every day maalbuwan horumar marka example sentence waxa way I'm improving every day maalbuwan horumar sababta maxay tahay because I practice English often waa adverb marka hada macna waxa way maalin walba may often waxaan practice English badana often means mar walba sameeyo amal okay first waxa way I am not afraid to speak English yes this is very important in real life too yes wal isticmaalasana I'm not marka tii nafta dhiirigelin rabto fiir marka dhaas oo kale qof aan ku leeyahay waa cabsan English ma hadalka I'm not afraid to speak English you know yes even if I am slow hatta dan gaawisa so marka aad jumlad kaliya faresku fuudiyay marka faresku celiso yes waxa ku fuudaan inaad jumlad geliso goorta la isticmaalso when you want confidence yes while speaking English like marka darabta kalsooni halka adigoo English ku hadla while marka adigoo hadan English ku hadlay marka darabta kalsooni oo kale yes xitaa haduu cabsi ay ku jirto nafta dhiigigeli I'm not afraid to speak English example sentence I'm not afraid to speak English in front of people that means maka cabsado ina English ku hadla in front of people that kortooda yes front waxa waaye qofku yani ku hortaan ama hortaada oo kale ina qof dhada leave my front adigu waxyaalahaas oo kale isticmaala qof maruu hortaada oo kale people know the taqan 7 mistakes help me learn okay mistakes help me learn qaladaadku waxay iga caawiyaan ama way iga caawiyaan ama waxay iga caawiyaan isla meesha waxay iga caawiyaan inaan barto hoos ku qorayaa when do you use goortaad isticmaalayso when you learn from your mistake when you learn from your mistakes markaad qaladaadka wax ka baranayso very important guys so qaladka inaad sameeyso waa everybody makes mistake you know mistake adu wax gooni ku ma even native speakers war qof aan qalad sameeyay ma adduunyada okay no one is perfect laakiin learn from them today maanta mistake sameeyso qof ka saxay yes so marka maanta ku xigto isku day inaad dhado yani better version teamid ka fiican so marka leena mistake is help me learn wa ina yani aad naftirka u fiirsataa maalin walba ina same mistake sameeyso aydan ma fiican example sentence I make mistakes waxaan sameeyaa qaladaad but mistakes help me learn laakiin qalad ba u jeeda oo dhiirigelin caadi
نفسها دي حضر نوكو شيء okay if you learn English you have to make more mistakes okay without mistakes you can't grow محل مركوان قلدما لكن قلداتكو ماشي يقول كوني مو باني translation سايتي okay الناس اللي فعلنا رجينا and it okay كانوا very important okay مركا نفتاضي يعني سيد وسيدي رجلنس I will succeed وقولي سندونا okay when do we use ما استعمالنا like we use when you are determined to reach your goal marka go answer yes determined however say determined like marka aad go answer to ina gaarto hadafkaaga example I will succeed if I keep working hard every day guuleysan doona hada maalin walbo si adag u shaqeey keep working okay yes keep working hard hada maalin walbo si adag u shaqeeyo guuleysan doona okay for us can solad let's get started kan goorma isticmaaleyna waa arki doona hada let's get started means I'm bilaan okay let's get started يعني I'm bilaan af Soomaali waa inta soo kali Soomaali I'm bilaan when to use okay goorma isticmaala waxa isticmaala when you want to begin activity I mean begin means start okay yes begin is start as same words. So when you want to begin an activity means task. Like activity waa wax aad qaban rabto oo kale shaqo oo kale okay activity is task isku mid ah marka aad rabto inaad wax bilowdo example everyone is ready so let's get started with the lesson for example aniga oo kale inaan ano barefta meel joogo inaan everyone is ready so let's get started and bilowno cashirka let's get started with the lesson and bilowno cashirka okay faresku ugu dambeeyo oo kan tawanaade waxa waaye I did not catch that maan fahmin taas maan qabanin midaas I know the exact meaning of catch waa qabasho laakiin hadda macnaha faham ina Somali translation to madrasa waxa ka fiican ID the faham okay ID the faham hadda ID I did not catch that taas maan fahmin okay taas maan qaban waa isla meeshii ina yani wax afahmin oo kaliya kumudi laakiin catch real life ka si kan wala isticmaala okay when to use gorma isticmaala marka kan when you did not hear or understand clearly yes markaad yani aad maqalin wax markaad maqalin did not hear ma maqalin or understand clearly si cadna uma fahmin Soomaaliga hadda ku weerarto mid symbol oo clear oo everybody understand no also yala the connection was bad so I did not catch that taasi ma qabanin qad connection means what xiriirinta oo kale am yani qadka oo kale xuma okay that's all about today's lesson I mean taban class fares ay maalmo badan xog soo gudbin doona taban ama meeshan halkan xog soo gudbin doona sida hada fares sidan oo maalmo la isticmaalo dialogues natural English sidoo kale common mistakes like xitaa native speakers fares sida isticmaalaan soo marka dhamaan cashiraha sawaanin muuqaalkan hada aragto like gray share gray ama haduu muuqaalkan ku anfaco subscribe sar like gray share gray si aad maalin walba u hesho cashiro cusub midna xasuusnaa like maalin kasta daa barato phrases yaryar ogow yani in speaking kaaga ay wax badan ka bedeli doonaan so waxa in videos xidinta ku kulmeen maalin walba waxaan ku soo gudbin doonaa halkan adina waxa igu dhiirigelinaysaa wali jira muuqaalka like gray sidoo kale channel-kan ku soo bir waa ina wax badan ka faa'iido meeshan and so kale waxa kale oo injiya takuwa ma tan phrase oo kaliya book oo caadi oo dhameystiran oo magaciisa leeyahay 100 daily English phrases ayaa ka sameeyay waa book PDF hada u baahan tahay buugaasi asana waa helaysa ilaa xiriir kaliya waa tabankan sidoo kale buugan waa same structure sida videogan oo kale saan ay u qoriyay phrase-ka baranaysa go'aanta isticmaala barane sidoo kale example then waxa ku jira xitaa buuga make your own sentence jumlad adiga samee so taas waa aan ku dhiirigeliyaa in aad hadda jumlad aasmis maro ina muuqaalka ku dheeraado so waxa idin leeyahay haddii ardayda waxbarashada ku fududeeyo sidoo kale halkan iskala socono